waxaan bilownay in aan isbartiibadii Muqdisho Stadium oo muddo xirnayd oo ahayd goob dagaal ahayd ay noqoto goob ciyaar oo dadku ay ku tamaashleeyaan ay ku ciyaaraan markii aan nimid oo nala doortay 2017 waxaan ka galnay shaqo aad iyo aad u badan meeshaas ay noqoto goobtii shacabka Soomaaliyeed ku kafaaxi lahaayeen laguna ciyaari lahaa kubadda cagta iyo Olombigaba qaar badan laga yaabo inay tageen meesh oo dhirta iyo jiqda iyo foolxumada ku taala meeshaas marnaba aan loo riyoonin inay ahayd goob ciyaar runtii uu xumay u reebtay meeshaas aan ugu aqaanay markii la furayeen xaadir ayaan ahaa sida uu ekeyd iyo sida ay u ekaatay waxaan go'aan ku qaadanay in aan isku tashanno gacmaheenana aan ku dhisanno waxa la fiilayay in aan fiirsanayno oo ayna dhaqaaqaynin ilaa dad shisheeye ay yimaadaan ee yiraahdaan waa dhaqaaqi kartaan had waa mahadsan yihiin waa u mahad celinay ciidamadii meesha joogeen waa u mahad celinay ciddii dhaqaale ku darsatay oo gacan nasiisane Norwegian